Muuqaalkeena maanta waxaan ku eegi doonaa hooyada marka ay uur leedahay jirkeeda marxaladaha uu marayo, noocyada isbedelada jirka iyo sidoo kale xilliga foosha, noocyada foosha ay u kala baxdo, dhibaatooyinka iyo talooyin guud oo haweenka gaar ahaan uurjiifka ku saabsan caawin kara oo aanu kusoo gudbin doono muuqaalkan haddii Allah awooda leh uu ogolaado. Aynu ku horeynay noocyada foosha dumarka ayaan eegaynaa. Fooshu waa isku ururinta muruqyada minka uteruska si ilmuhu uga soo baxo gudaha farjiga haweenka, waxaana jira dhowr nooc oo foosha ku saabsan. Tan koowaad waa foosha been abuurka. Waxay bilowdaan toddobaadyada dambe ee uurka, mararka qaar xitaa xilli hore ay markaasi soo degdegaan. Ma ahan mid joogto ah ama kuwo joogto ah, way yara fudud yihiin, waxaana badanaa ku imaanaya kala fogaansho aan joogto ahayn. Lama socdo furitaanka makaanka ilmo-galeenka. Foosha dhabta ayaa ah midda labaad ama true labor contractions waxa loo yaqaano. Waxay noqdaan kuwo joogto oo soo noqnoqda. Xanuunkan ayaa sii xoogeysanaya marba marka ka dambeysa. Sidoo kale kala fogaanshaha fooshu wuu yaraadaa ama way yaraataa. Tusaale 10 daqiiqo, 7 daqiiqo, 5 daqiiqo ayay u dhaxaysaa. Waxay sababaan furitaanka iyo sidoo kale ballaarka makaanka ilmo-galeenka. Foosha hore ama early labour-ga waxay socon kartaa saacado ama maalmo. Fooshan ayaa bilaabantaa ama ayaa ah mid aan markaasi aad u dheereen laakiin tartiib tartiib ayuu u xoogeysanaysaa. Foosha dhexda ama midda dambe xanuunka aad ayuu u xoogeystaa. Waqtiyada aad bay isugu dhow yihiin, tusaale 2 ilaa 3 daqiiqo xilli kasta oo fooshu ay qabanayso haweeneyda. Makaanka ilmo-galeenka ayaa si degdeg ah u furmaya 4 ilaa 10 sentimitir, waana qaybta ugu adag ee foosha. Haddaba dumarka badankood waxay la kulmaan dhidid ama culays dhabarka iyo miskaha, xanuun isdaba joog oo dhanka caloosha, qandho foosha la socoto oo soo noqnoqda gaar ahaana habeenkii, walwal iyo daal, taasi oo keenta hurdo yari. Hababka lagu yareeyo xanuunka iyo dhibaatooyinka foosha waxaa ka mid ah neefsasho iyo nasiino. Neefsashada qotada dheer iyo sii deynta si tartiib ah naqaska waxay yareeyaan walbahaarka kordhaya isla markaana sare u qaadaya oksijiinta. Jimicsi fudud, socod yar ama dhaqdhaqaaq fudud ayaa caawin kara in ilmaha si fiican uga soo daadego qaybta makaanka. Masaaj ama riixid iyo sidoo kale diliig dhabarka ama miskaha ayaa khafiifiya xanuunkan. Biyo kulul ama biyo diiran oo lagu qubeysto oo ama towel kulul oo la saaro dhabarka ayaa dejiya murqaha. Beddelka booska jiifka, in marka la jiifsado dhinac bidix la jiifsado ama la istaago la fadhiisto ama la socdo way fududeynaysaa foosha. Cabitaanka biyo iyo sidoo kale cunno fudud waxay ka hortagaysaa daal iyo haraad oo kor u qaadi karta tamarta. Sidoo kale si joogitaan ah qof qaraabo ama markaasi umuliso ama qof markaasi garab ku siin karta haddii ay ka agdhowdahay waxay yareynaysaa cabsi iyo walbahaar. Hababka caafimaad ee lagu talinayo cisbitaalada laga helana waxaa ka mid ah in dawooyin xanuun baabi'iye ah in haweenku la siiyo, in sidoo kale oxygen iyo sidoo kale mararka qaar waxay ka caawin karaan IV fluidska loo yaqaano gaar ahaan cirbadaha iyo leemanka lagu xidho haweenka tamar iyo neefsasho. Talooyinka guud ee haweenka uurjiifka waxaa ka mid ah inay horey u bartaan tababarka foosha ama antenatal classes waxa loo yaqaano, inay joogteeyaan socod iyo dhaqdhaqaaq inta uu uurka lagu jiro, in ay la socdaan umulisada xaaladda fooshu marka ay socoto haddii ay noqoto xilliyada isku dhow gaar ahaan foosha ama xanuunka marka uu ka xoog bato haweeneyda, inay ka fogaato cabsida fikirka si ay u hesho taageero qoyseed iyo sidoo kale qaraabo. Haddaba fooshu waa geedi socodka dabiiciga ah ee u baahan adkaysi iyo sidoo kale taageero. Inkastoo ay xanuun badan tahay, hababka dabiiciga iyo daryeel caafimadeed ayaa ka caawin kara haweenka inay yareeyaan culayska isla markaana ay fududeeyaan foosha isla markaana si badbaado leh ay u dhalaan. Haddaba hooyada marka ay uur leedahay jirkeedu wuxuu marayaa isbedelo badan oo sababa xanuuno iyo sidoo kale culaysyo dheeraad ah oo ka hor inta aanu ilmuhu dhalan. Qaar ka mid ah xanuunadan ayaa ah kuwo dabiici oo qayb ka ah diyaarinta dhalmada, halka kuwo kale ay ka dhalan karaan arrimo caafimaad ama sidoo kale nololeed. Waxyaabaha keeno xanuunada daba dheeraadka ah ee inta fooshu ay socoto waxaa ka mid ah ballaarka makaanka ilmo-galeenka ama cervix dilation waxa loo yaqaano. Marka uu furmayo waxa uu sababaa xanuun xoog leh oo joogto ah. Isu ururinta muruqyada minka waa foosha dhabta oo si joogto ah u xoogeysanaysa. Cadaadiska madaxa ilmuhu marka uu hoos uga soo dego miskaha
waxa uu cadaadis saarayaa dhabarka hoose iyo miskaha, xididada oo fida, dhiig badan ayaa u qulqulaya miskaha iyo sidoo kale makaanka, taasoo keenta culays iyo xanuun. Arrimaha caafimaad waxaa ka mid ah carruurta culayskoodu sarreeyo waxay adkeynaysaa ama ay ka qayb qaadanaysaa in haweeneydu foosha ay ku rafaado. Sidoo kale ilmaha marka uu si khaldan ama caadi ahaan u jeefto, haddii ilmaha madaxiisu uu si fiican uga maqan yahay ama uusan si fiican ugu jeefsanin booska saxda ah, tusaale lug ama dhabar haddii ay hor taallo, taasi dhibaato ayay keeni kartaa. Daalka wuxuu kordhiyaa xanuunka, infekshanka ama caabuqa ku dhaco kaadi haysta, makaanka ama xuubka. Amniotica loo yaqaan wuxuu kordhiyaa xanuunka iyo foosha degdega. Sidoo kale cudurrada hooyada sida dhiig-yarida, sonkorowga, dhiig-yaraanta dhammaanba waxay keenaan dhibaatooyinka laga dhaxlo xilliga foosha. Daal iyo hurdo la'aan haweenkii, gaar ahaan haweenka oo aan helin nasasho ku filan inta uurka lagu jiro, waxay la kulmaan foosha oo adag. Sidoo kale stresska iyo fikirka, maskaxda oo cadaadis saaran waxay kordhisaa xanuunka. Hormoonka cortisol ayaa xoojiya dareenka xanuunka. Sidoo kale nafaqo yarida waxay hoos u dhigtaa awoodda murqaha iyo tamarta foosha. Haweeneyda haddii aysan haysanin qof ku garab istaago dhalmada, badanaa waxay dareentaa xanuun dheeraad ah, gaar ahaanna marka ay ka ag dhoweyn qof markaasi caawiso ama qof caawiyo wehel ama qaraabadeeda aysan halkaa ka dhoweyn. Waxyaabaha ka caawin kara hooyada inay si sahlan u dhasho: nasasho joogto ah, hurdo ku filan maalmaha foosha ka hor, in biyo badan ay cabto, sidoo kale cunno caafimaad leh ay cunto isku dheelitiran si jirkeedu u helo tamar, in dhaqdhaqaaq ay samayso iyo socod si ilmuhu uga soo dego booska saxda ugu soo daadego. In haweeneydu ay iyadu ka qayb qaadato in ay barato hababka neefsashada ama breathing exercise-ka waxa loo yaqaano. Sidoo kale massage iyo in biyo diiran ay ku qubeysato si murqaha loo dejiyo. In sidoo kale ay hesho taageero nafsiyadeed iyo mid jireed oo ka timaada sayga, qoyska ama umulisada. Dawooyinka xanuun joojinta, haddii umulisadu ama dhakhtartu ay talo ku bixiso in haweeneydu la siiyo dawooyin xanuun joojiya ama xanuun baabi'iya, dhammaanba way caawin karaan haweeneydu. Haddaba xanuunka dheeraadka ee dumarka ay la kulmaan inta fooshu ay socoto waxaa sabab u ah isku dhafka isbedelada dabiiciga, caafimaad iyo mid nafsiyeed. Haddii hooyadu ay hesho daryeel, nafaqo, taageero iyo nasasho, fooshu way u fududaataa, khatartuna waa ay yaraataa. Waxaa had iyo jeer dhakhaatiirta iyo khubarada caafimaadka ay kula talinayaan haweeneydu marka ay culus tahay ama xaamilo tahay ama xilliga markaasi dhalitaankeeda uu soo dhow yahay, in ay isku daydo in nasiino badan ay qaadato. Sidoo kale in ay ka dheeraato wax walba oo keeni kara in maskaxdeedu buuq ku furmo. Sidoo kalena waxaa lagula talinayaa in xilliyada qaar ay samayso jimicsi iyo sidoo kale socod joogto ah. In sidoo kale ay ka fogaato cabitaanada iyo waxyaabaha ka qayb qaadanaya korriinka ilmaha caloosha ku jira. Intaa ayaan kusoo gabagabeynaya muuqaalkan. Subscribe inoo saar channelka, like garee muuqaalkan la wadaaga asxaabtaada.